السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تسود وهذا هدي أيقو عصبتين بليس وحايدين كوعتنا سبسكرايب إنا إي سارتان oo fiidiyowgana meel dheer ay gaarsiisaan fiidiyowgan waxaan rabaa inaan uga hadlo warbixin ku saabsan qaabab kaleeto yacni oo Indonesia looga bixi karo yacni dad isweydiinaya ma jiraan marka insha Allah waxaan rabaa dadka aanan ogeyn inaan u faahfaahiyo aan wax fahansiiyo haddii ay jiraan iyo haddii aysan jirin labadaba fiidiyowgan ayaa ku ogaanaysiin fiidiyowgan meel dheer gaarsiiya insha Allah biidhnillah dhiirigelintu waa xagiina markii intaas laga soo gudbo waa ka soo hadlay qaxootiga iyo nolosha Indonesia laakiin fiidiyowgan see loogu bixi karaa Indonesia horta waa wadan xirxiran waxay daris la tahay wadamo badan ay daris la tahay laakiin dhinacaan dhinaca yacni ugu dambeeya waxay daris la tahay haddii aan yacni aan bari waxay daris la tahay Australia iyo New Zealand yacni wadamanka oo oo lagu noolaan karo ama loo tahriibi karo wadamo badan ayay daris la tahay laakiin muhiimadda taas ma ahan yacni laakiin wadamada oo qaxootiga loo tago waxay daris la tahay New Zealand iyo Australia New Zealand iyo Australia bad ayaa u dhaxayso Indonesia baddaasoo maalmo loo soconayo yacni maalin iyo laba ma ahan waa maalmo loo soconayo badda ugu dhow waxaa laga yaabaa 3 maalin in loo socdo midda kaleetana isbuuc in loo socdo marka xilligii 13 Indonesia waa laga tahriibi jiray oo Australia loo tahriibi jiray kadib Australia markay go'aan soo rogtay inaysan qaabili doonin yacni dad tahriib ku imaado wadankeeda oo Indonesia ka soo tahriiba waxay samaysay Australia jasiirad oo hore u jirto laakiin jasiiradaas waxay ka dhex samaysay meel qaxooti ah jasiiradaas magaceeda waxaa la dhahaa Papua New Guinea ayaa la dhahaa markii baddan oo laga gudbo Indonesia Australia badda u dhaxaysa markii laga gudbo waxaa la tagayaa jasiiradaas oo la dhaho Papua New Guinea jasiiradaas markii la tago yacni Australia saacado ay u jirtaa inuu gobolada Australia oo ama baabuur lagu tago ama lug ama yacni saacado ama maalin ayaa laga yaabaa inay u jirto laakiin Australia ma qaabilayso hore ay ka soo celinay waxay keenaysaa jasiiradaas oo process lagu qaadanayo process haba lagu qaato muxume Australia ayaa waxay haddana sii go'aansatay dadka qaxootigeeda ku soo galaya sharci darrada aysan ka qaadanin jasiiradaas wadaman kale ayaa dadka meesha ka qaadanayo sida badi dadka ugu badan Mareykan ayaa meesha ka qaaday oo dhahay dadka masaakiinta meesha ku xayran annaga ayaa dib u dejin siinayno Mareykan ayaa dadka meesha ka qaaday iyo New Zealand ayadana oo qaar qaadatay laakiin Australia wayba diiday dadka meesha sharci darrada ku imaado ilaa ay haddana Australia 13 ilaa ay hadda go'aankeedii ayay ku adkaysatay oo way aqbali laadahay laakiin hadda waagaas zaaid ayaa loo aadi jiray hadda waxaa laga yaabaa 1 iyo 2 inay aadaan halkii 2 aadana waxay ku hakisaa jasiiradaas wali yacni jasiiradaas qaxootiga wuu kasii jiraa wali dad ayaa sii jooga oo ku nool waagii hore waa laga cabsan jiray oo dadka jasiirada degan waa dad madmadow oo cawaan ah oo in ay dadka dhibaateeyaan laakiin hadda dadka qaxootiga ayagu isla qabsadeen marka shaqo xitaa hadda way ka helaan laakiin waa nolol ka sii adag nolosha Indonesia jasiiradaas dadka sidaas darteeda ayay ugu hakadaan Indonesia markii taas laga soo gudbo Indonesia leemanka kale oo looga bixi karo waxaa kamid ah qofka hadduu lacag haysto ama uu passport Kenyaati ama passport South African uu haysto in uu heli karo fursad oo wadan kale uu ku aado insha Allah biidhnillah video kale ku soo sharaxaya fiidiyahan daqiiqadaha iga sii dhamaanayo marka soo dhawaada haddii aad rabtiin informationadaas yacni hadda arrintaas way yara adag tahay